qodobada warka ku soo sheegnay xaafada Dodobaad ee magaalada madaxda wiil yar oo dhalinyaro ah ayaa xalay xilligii dambe kurka ka jaray 5 qof oo qoyskiisa ah halka qof kalena uu ku dhaawacay oo ilaa xilligani dhakhtarka lagu daweynayo wiilkaasi yar oo ah arday ayaa toori u adeegsaday dilkaasi naxdinta badan leh u geystay ehelkiisa dhacdadani naxdinta badan leh ayaa waxay ay dhacday intii u dhaxaysay 12 habeenimo ilaa 3 ciidamada booliska ayaa sheegay in wiilkani uu horay u geysan fal dambiyeed noocaasi hase yeeshee waxa ay la doonayaa in la ogaado sababtii ku dhalaysay ee ka dambeysay falkaasi waxa uu toori uu ku dilay hooyadii iyo 3 walaalihii ah kadibna waxa uu la hadlay aabihii oo taksiila kadibna waxa uu dilay sidaasina waxa sheegay dadka dariska la xaafadaasi ciidamada booliska ayaa gacanta ku haya wiilkaasi yar oo dilka u geystay ehelkiisa waxayna ay sheegeen in uu soo dhiibay kolkii uu toori uu ku dilay 5 qof oo ehelkiisa ciidamada booliska ayaa sheegay in wiilkaasi dhalinyarada ah uu geysan fal dambiyeed noocaasi oo kala hase yeeshee in ay u baahan inay baaraan sababta dhalisay falkaasi mas'uuliyiinta dawladda ayaa si degdeg ah u fadhiisatay kulan ugu fadhiisatay war-saxaafadeed oo lagu qabto lagu talagalay dhacdadaasi oo ka qayb qaateen mas'uuliyiinta dawliga oo kamidka uu yahay Commandant Habib Hussein Buux agaasimaha ammaanka dadweynaha Umar Xasan ayaa inaga waramay sida arimuhu ay u jiraan waxaan yahay ilaa 4 xarunta dhexe taliska booliska waxa yimiday nin dhalinyaro ninkaasi askarti xalay shaqeynayay ilaalada ahayd wuxuu sheegay inuu dhacdo aad u foolxun u geystay oo uu reerkoogii aabihii hooyadii iyo walaaladii uu dilay isla markiiba ciidankii xalay shaqeynayay way baxeen waxay tageen gurigii ay ka dhacday falkan foosha xun markii ay gurigii tageen gabar yaroo waxay ugu tageen dhaawaca oo midi lagu dhuftay uu ninkan walaalkeed ku dhuftay markii dambe waxay arkeen 5 qof oo meeyda oo meesha guriga dhexdiisa yaala ciidankii booliskii arusma ugu dhawaa ayaa iyaguna yimiday meeshii isla markiiba waxa loo yeeray ciidankii gaar ahaan ku shaqo lahaa dambiyada aadka foosha xun leh dilka kale iyo kuwii taswiiraha ku shaqo lahaa ciidanka qaybihiisa kala duwanaayo dhan ayaa isku yimiday maca saraakiishii ugu sarsiisay oo anagu kamid ahayn meeshiiba xalay waan gaadhnay meesha waxaan markii aan tagnay baan aragnay inay dhacdadaasi aad u fool xumayd 5 qof ee meesha ku dhimatay midid lagu dilay waxay kala hayeen aabihii reerka hooyadii iyo 3 hablood oo ninkan falka geystay awal ahaayeen gabadhii iyadu dhaawac ahayd uu moodayay inay dhimatay isla markiiba ambulance baa lagu qaadnay waxa geeyay dhakhtarkii si loo badbaadiyo imika aan dhakhtarkii ku jirta way nooshay laakiin intii kale dhan way wada dhinteen baaritaankii aan ka sameynay aqalka dhexdiisa waxaan helnay midii qalabkii ninkan isticmaalay markuu dambiga geysanay dadkaan la dilay waxa lagu wada dilay midii baa loo geeshay qof kasta waxa ku yaala jirkiisa oo meeyda nabarro aad u badan oo midiya meeshii 3 midii baan ku helnay 3 midii bay isaga isticmaalay markii dambe baaritaankii waa si wadnay ciidanka waxa dhinaca caafimaad ahaan ayaa ninkani baaritaan ugu sameeyay inta baaritaanka caafimaadka waxa inaga warami doona Dr. Samatar oo waa kolonel ciidanka booliska ka tirsan waa ninka quraatay medicine legist ee jamhuuriyadda Djibouti ay leedahay isaga faahfaahin naga sii doona wixii caafimaadka ku saabsan laakiin xaqii kale dambi baaristi waxaan oran karnaa ninkaasi waa nin ku tala galay inuu waxaan geysto dacwadii ugu horeysay laga qorayba wuu qarinayaa inuu isagu dambiga geystay oo waxba ma qarinayo baaritaankana waa sii wadnaa waxa weeyaan waa nin 12 jira oo jaamacadda dhigta sanadkii 3 waliba jaamacadda dhigta oo liisaas isku diyaarinayay baaritaankana waa sii wadi doonaa
markay dhammaato baaritaankuna waxaa la horgeyn doonaa cadaaladda maxkamadda soo taagi doonaa. كولونيل عمر حسن بوها أقسمها سكرتير ببليغا dadweynaha degan xaafada toddobaad ama la dariska ah wiilkaasi dhagarta geystay ayaa iyaguna aan wareys la yeelanay oo ka muujiyay arrinkaasi argagax badan waxna hadalladood kamid ah wax ilaahay waran oo naga siinay ma jirto askartu kolkay timiday halka ay albaabka garaacayso baan ana soo baxay walkaan soo baxayna askarti waxay geeyeen aqalka gal salaadii baan tukaday haddana waan baxay haddana noqoyga yidhaaheen waan soo noqday haddeeto la magaaladii baaba isku timiday askartii baa soo batay waa soo dareeray ina kolkii hore ina yaro iska fiican buu ahaa jaamacaddu dhiganay kolkuu halkaan naga soo horbaxo hooyo waxay nagama waranay laakiin daraarahan dambe anu ma arkin waxay iga yidhaaheen waxa la yidhi quraan baa lagu akhriyay ashadu quraan baa lagu akhriyay wax intaa dhaafsan oon ka arkay ka sheegaynaa ma jirto waxa weeyaan salaadii subax markii aan tukanoon baan maqalnay ee wax kulay wixii reerka ku dhex jiro un baa og sheekada ina ku inay yaro mu'adab ahaa ina ku inay yaro khaluq ahaa wax dib jiro saaqida waxa mu ahayn reerku reer edeb leh oo shaarko dhan laga yaqaan bahan Umarow samad garan de wallahi waxaan argagixisuun bay nagu noqotay saaka waxaan wadakeena hore uga dhicin bay ahayd subhanallah de waa musiibo maxaa kale loo odhan karaa waa yaabsannahayba anagu hooyo waan yaabsannahay suquudka maanta dhacday anagu waan ka yaabsannahay dalkeenana wali kama dhicin dalkeenana wali kama maxay kula tahay bal maxay kula tahay wax intahay ka maanta ina ka heersoo dadka uu leeyay la raaxiyo ba wadakeenu sidii ahaanaya wali arag oo la maqal masiba wali aan la arag oo la maqal weeyaan ilaahu dibna noogu soo celin ilaahuna dibna noogu soo celin waxa wax lamida wax ilaahu noogu soo celin sida ilaahu noo yeel ilaahu naga ilaahu noo hadiyo ilaahu quraanka lagu daro yaalka waxay maamada lagu horeysiyo ninkan maamad lama taabsiinin iskool un baa la geeyay iskoolkiina waa ka wareerka ka qaaday حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بالله أروح قال كرتون أفتيس سري مسكيتك بركة سبحان الله بالله بحر ودوحن لأرجع لما قال ولي إلى هيدي النسوء قارسين waxaan sheegi karay horta maaha waxaan ka anfariiray oo ka agagaxnayeen 44 jir baan ahay wali Djibouti arrinka kama dhicin cimriga inta noolahay wali Djibouti arrinka kama dhicin saaka lixdii markaan shaqo tagayay dariiqa ma soo maray waan arkay waan soo weecday markaan maqlay dadkii oo qof waa ilmihiisa dadkiisii qoyskiisii laayay ayaan anfariir qaaday waa shaqadii kir waa dirqan ku shaqadii marka arintan Djibouti xoog uguma dhicin ugumana dhici doonto marka ilaahay inta waan noogu joojiyo masiibo lamida Djibouti kama dhicin arigan ya ilaahay samriina dadkii ka haray ilaahay ka siiyo allah u naxariiso iyagana maxamed xaaji maxamed waan qaan maxamed abdi waan qaanay boorku ka tirtirtayay waan imkana taksiga yar ku shaqaysanay de waa arin ajaayib ah kiisi yarna waan garanay de waxa fala waligiis ma lahayn ba halka liisada balbala markuu dhiganay ayaan qaanay de garan maayo de waxa ku dhacay ninkaaya ya ummadii oo dhan ayaa fajacsan maanta waxaan maqlay oo warta maanta wax aad u dheer wuxuna ilaahay allah na qabto maanta Djibouti maanta dhacday oo xaafadaha talasada inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un maanta waan nahay toonsi maanta soo xisoo intii way nitidina وصل دولة وصل